qaar badan oo inaga mid ah waxay u maleeyaan in dadka caanka ah sida aktarada Hollywood iyo fanaaniinta ay isdilaan marka stressku ku bato, laakiin xaqiiqdu sidaas ma aha. Ma ogtahay in dadkaas caanka ah markay caan noqdaan waxa la soo xiriira xarakada Maasoniyadda iyadoo ka dalbanaysa inay ku soo biiraan xarakada Maasoniyadda ee shayaadiinta caabuda? Dadkaas waxay noqdaan laba mid, qaar diiday iyo qaar ku biira Maasoniyadda. Kuwa ku biira waxay helaan lacag badan iyo caanimo markay heshiiska la saxdaan Maasoniyadda. Heshiiska waa mid noloshooda galaafan kara haddii ay jabiyaan heshiiska. Muuqaalkan waxaan ku soo bandhigi doonaa 5 qof oo caan ah ay Maasoniyaddu dishay. Qofka koowaad waa boqorkii raabka ee Tupac Shakur. Ma ogtahay sababta galaafatay nolosha Tupac inay ahayd inuu bannaanka soo dhigay siraha Maasoniyadda? markasta waxa uu TV-ga ka sheegi jiray dhagarta Maasoniyadda. Heesiisa waxa uu ku xusi jiray dawladda Mareykanka sida cunsuriyadda dawladda Mareykanka ee dadka madow iyo muslimiinta ay ku hayso, iyo xitaa dagaalada bariga dhexe uu ka wado Mareykanku. Waxa uu Maasoniyadda ay u soo bandhigtay Tupac $100,000 si uu heeso islaam nacayb ah u soo saaro, laakiin uu iska diiday dalabkaas isagoo oo ku jawaabay ma waxaad u malaynaysaa inaan raganimadeeda lacag ku bedesho. Markii uu ka soo baxay jeelka waxa uu qaaday hees cusub oo ciwaankeedu ahaa Maasoniyadda la dagaalama. 2 bilood kadib markii ay heestaas soo baxday ayaa lagu dilay Tupac magaalada Las Vegas ee waddanka Mareykanka. Qofka labaad waa fanaankii Bob Marley. dadku dhammaan waxay u maleeyaan in geerida Bob Marley ay iska caadi ahayd, laakiin sababteeda sida ay sheegeen warbaahintu waxay ahayd xanuunka kansarka inuu ku dhacay. laakiin Bob Marley xilligaas waxa uu diiday in laga daweeyo xanuunka ilaa uu ku fiday maskaxdiisa kadib markii dambena uu u geeriyooday. laakiin sida laga shakisan yahay waxa la sheegaa in Maasoniyaddu ay ku leedahay dilkiisa, sababtoo ah waxa lagu yaqaanay heesiisa cadaaladda iyo sinaanta. waxa uu ahaa fanaankii ugu saameynta badnaa qarnigii 20aad. sidoo kale waxa lagu yaqaanay Bob Marley nacaybkiisa uu Maasoniyadda u qabay. waxa la aaminsan yahay in gurigiisa lagu furay shucaac, taas oo caafimaadkiisa waxyeeshay. sida uu wiilkiisu sheegay, gurigooda way ka guureen markay u adkeysan waayeen xanuun, shucaac iyo waxyaabo kale oo aan la garanayn. qofka saddexaad waa fanaankii Michael Jackson, boqorkii jazz-ka ee qabsaday carshiga jazz-ka in ka badan 30 sano. waxa lagu yaqaanaa fanaankii albamkiisa loogu iibsiga badnaa taariikhda fanka. waxa uu la kulmay Michael Jackson weerarka saxaafadda oo sumcad dishay, taas oo ay ka dambeysay Maasoniyaddu. ilaa imika geerida Michael Jackson lama helin sababteeda. sida ay walaashii sheegtay, waxa laga shakisan yahay in dhakhtarkiisu dilay. arrinta yaab kale waxa weeye in geeridiisu ku soo beegmatay xilli uu rabay inuu diinta Islaamka soo galo, taas oo ka nixisay Maasoniyadda. sidoo kale heesiisa Michael waxa uu kaga soo horjeeday ururada qarsoodiga ah sida Maasoniyadda iyo kuwo kale, taas oo ay ka soo horjeesteen ururadaasi. qofka afraad waa madaxweynihii Mareykanka ee John F. Kennedy. khudbadihii madaxweynihii Mareykanka ee John F. Kennedy waxa uu ku sheegi jiray in Mareykanka ay ku sugan yihiin ururo qarsoodi ah oo loo baahan yahay in la joojiyo. sidaas darteed dilkiisii waxa loo tiriyaa Maasoniyadda oo u arkaysay halis, maadaama uu adeeci waayay amarkoodii sida inuu dagaalo cusub la galo dawlado kale. Maasoniyaddu xilligaas waxay sugi kari weyday halka sano ee uu hadhay xukunkiisa. sidaas darteed xalku waxa uu ahaa in la dilo. sidoo kale aabihiis waxa uu ku jiray Maasoniyadda isaga oo qayb ka ahaa kiniisadii shaydaanka. ninkii dilay madaxweyne John F. Kennedy markii la soo qabtay ayaa isla maalintaas la dilay iyadoo oo ay boolisku waraysan. halkaas ayay maxkamaddu kiiskii ku xidhay. qofka shanaad waa amiiradii Diana. dilkii Diana waxa uu ahaa mid qarsoodi ahaa. xilligaa waxa laga shakasanaa boqortooyadii Ingiriiska, waliba boqorkii Philips oo qabay boqoradda Elizabeth, maadaama Diana ay khiyaantay wiilkiisa Charles oo ay nin kale la seexatay markastana khilaaf ka dhaxeeyay. laakiin arrinta sida loo badinayo waxa ka dambeeyay dilkeeda Maasoniyadda, maadaama Diana ay guursan rabtay nin taajir ah oo Masar u dhashay, waliba muslim ah, taas oo loo ogolayn in Diana oo reer boqor ah ay qof muslim ah guursato, taas oo xilligaas wax u dhimaysay dacaayadda Islaamka lagu hayo.